wafdi ballaaran oo hogaaminaya xeer ilaaliyaha guud ee qaranka Soomaaliland Cabdiraxmaan Jaamac Hayaan oo maalmihii ugu dambeeyay safar shaqo ku marayay gobolada bariga Soomaaliland oo soo gaaray caasimadda gobolka ayaa soo kormeeray xabsiga dhexe magaalada iyo qaar ka mid ah saldhigyada magaalada Ceergaabo iyo waliba xarumaha maxkamadaha ee gobolka Sanaag iyo waliba xeer ilaalinta gobolka waxaana safarkan gudoomiye oo ujeedadiisu salka ku haya sidii ugu kuurgali lahaa xabsiyada gobolka iyo maxaabiista iyo waliba saldhigyada iyo maxkamadaha iyo waxa ugu horeyntii u booqday xarunta xabsiga dhexe magaalada iyadoo halkaasna ay ka kala hadleen taliyaha ciidanka asluubta ee gobolka Sanaag gaashaanle sare Maxamed Digaale Siciid iyo waliba gudoomiyaha maxkamadda rafcaanka Sheekh Maxamed Axmed Cabdallah anana ku soo dhaweynaa xeeraaliyihii guud ee qaranka iyo wafdi uu hogaaminayo iyo xeeraaliyihii gobolka gudoomiyaha rafcaanka oo iyana soo booqday xeraday soo arkeen ay soo booqdeen maxaabiista iyo noloshooda iyo waxay tabanayaan oo dhan baan soo wada arkeen annaguna waa u baahnayn inay noo yimaadaan oo nala arkaan iyo wixii dayax jira iyo wixii wanaag jiraba iyo wixii muxuu nagu soo kordhinayaan talooyina aad baan ugu baahnayn aad iyo aad u mahadsan yihiin waana soo dhaweynaynaa aad iyo aad baan ugu soo dhaweynaynaa gobolka Sanaag aad baan ugu mahadnaqaynaa kormeerkiisa uu ku soo eegayo guud ahaan gobolka Sanaag hay'adaha isaga qusaya marka aad baan u soo dhaweynaynaa xeraaliye guud ku soo dhawo gobolka uu nabad qabaa wax dhibi ma jiro nimankana waxa socda hawlihii nabadeynta gobolka ugu dambeyn laga waday wufuudii way soo hor dhaceen dhinacyadoo dhan aad baan ugu faraxsanahay shaqooyinka gobolkuna sidii loogu talagalay haday tahay maxkamadaha haday tahay jeelkan nimanka joogno haday tahay booliisku si habsame oo wanaagsan oo hufan ayay u socdaan insha Allah waadna soo yeegaysaa xafiisyada soo kormeeri doontaa inta ku qusaysa adiga aad baan ku soo dhaweynaynaa waanad mahad waxaana halkaasi ka hadlay xeer ilaaliyaha guud ee qaranka Soomaaliland Cabdiraxmaan Jaamac Hayaan oo ka warramay ujeedada safarkan ay u yimaadeen gobolka Sanaag gobolku uu ku sugan yahay xaalad wanaagsan oo ku soo aragnay bilowgii aan soo galay degmada Garadaga aan ka soo bilownay arrintan aan u soconaana waxa weeye kormeer guud oo xafiiska xeeraalintu uu ku bixinayo gobolada bariga oo ka soo bilaabmay magaalada Berbera iyo Burco gobolka Togdheer iyo gobolka Saaxil iyo gobolka Sanaag oo nimiga marayno gobolada kale ee noo hadhayna waan dhamaystiri doonaa insha Allah marka waxaan ka soo bilaabmay kormeerkayagii degmada Garadaga baan ku soo bilaabmay xabsigii Garadagana waan soo marnay waxa kale oo saldhiga ayaan soo marnay degmada Ceelif weyn oo markii hore laga deerin jiray aad u wanaagsaneed iyadana waan soo marnay xabsigeyga iyo saldhigeyga dhammaan gobolka imiga Ceergaabo ayaa waan ku dambeynay joogna jeelka marka waxaan brief yar oo kooban oo ah ujeedada safarkani waxa weeyaan inaanu u kuurgalno bahda cadaaladda iyo garsoorka iyo hay'adaha ka shaqeeya maxay cadaaladda haday yihiin maxkamado iyo haday yihiin xeeraalin iyo haday xabsiye yihiin iyo haday saldhigye yihiin iyo maamulka gobolka inaan la kulano iyada laftigeyga dhammaantood waanu xog wareysan doonaa waxaananu u koorgelin doonaa shaqada uu bahda garsoorku ay hayso ay gobolkan ka hayso iyo sidii loo dardargelin lahaa shaqadooda oo u sii dhiirigelin lahayd xafiiska xeeraalintuna wuxuu soo baxay 3 team ayuu ku socday team dacwadaha galaya oo maxkamadda sare ay wada socdeen oo ay magaalada gobolka Togdheer dacwadaha ay ku qaadayeen iyo team kormeer oo aanu hogaaminayo saldhigyada iyo xabsiyada ku kormeerinay iyo team saddexaad oo IT iyo technology ah oo ku saabsan in la habeeyo kiisaska yaala gobol kasta in loo bedelo qaab electronic ah oo ah in la diiwaan geliyo dacwad kasta oo ka timaada saldhigyada iyo laamaha baaritaanka isla markaana la diiwaan geliyo oo kiis kasta laga diiwaan geliyo qaab server loo sameeyo halka marka dacwadu ka soo bilaabato saldhiga ilaa ay gungaarka imanayso ilaa eeda loo sameynayo ilaa maxkamaddu go'aan ka gaarayso ilaa ambiil la qaadanayo maxkamadda rafcaankan loo qaadanayo maxkamadda sare loo qaadanayo
ilaa dib eegista kiiska in saa loo maro oo taas oo barbar socoto warqadda dambi baaritaanka oo ahaan jirtay awal in dambiilayaalihii ay qaataan warqadda dambi baaritaanka taasina aanu seer meel ka wada gelino wixii dambi waddanka ka dhaco dhan in loo RC meel la yiraahdo recordka dambiyada loo sameeyo oo dacwo ninka ka qaadanaya warqadda dambi la'aanta ceeri gaabo iyo ka boorama ka qaadanaya marka ay qaadanayaan la eego ninkani dambi meesha ka galay inuu sanaa ka galay iyo inuu ka galay awdal iyo inuu hargeysa ka galay iyo inuu togdheer ka galay la ogaado ninkaasi ma dambi buu ayaa ku socda ama lagu xukumay dabadna halka laga ogaado qofkaasi markuu faylkiisu nadiif yahay la siiyo waayo waxa iman doonta doorashooyin baa iman doona dawladda hoose la isku sharixi waxa la isku sharixi maxay ahaydeen golaha wakiilada arrinka ninkii 5 sano haday gudihii ay ku dhacday dambi ku dhacay wax warqad dambi la'aana inaga heli maayo intii hore uu naga heli jiro uu yara meeru ka dustusi jiray warqadani lama foojari gareyn karo iskaanba la saaraya marka la soo qaato dii macluumaadka laga waayo serverka iyaga waxay noqonaysaa qaabkaana waan wadnay oo waxa lagu tababarayay maxay ahaydeen xafiisyada maxay ahaydeen garsoorka sida xeeraalinta iyo maxkamadana wala tustoona insha Allah qaabka ayaan doonaynaa in loo hawl galo oo waddanka dhan uu noqdo mid isku xidhan taasina weeyaan xabsiyadana aan joognana waan ugu kuurgalnay arrimo badan oo ku saabsanaa daryeelka maxaabiista aad ayuu wanaagsan yahay xagga cuntadooda xagga dawadooda xagga hurdadooda xagga qolalka ku jira waa nadiif laakiin jeelka ayaa jilicsan oo u baahan in la habeeyo oo maxay meelaha dumayo kale loo habeeyo waxyaalaha ka dhimanna aanu ku aragnay shil roomada uu siye jeelkan waxyaalahan ku aragnay ee gaarka ah haddii maxaabiista cabanaysa ay jirto iyo haddii jeelku xaaladiisa dhisme ay liidato iyo qalabka xafiisyada ee ka dhiman iyo maxay ahayd gaadiidka waxyaalahaasna insha Allah waxaanu sameyn doonaa inaanu hay'adaha khusayso aan u gudbino oo laga hawl galo waayo kulli sharci cadaalad la qabanaya sanadka oo lagu habaynayo wixii cadaalad ka dhiman iyo miisaaniyadooda lagu dhamaystirin doono madaxweynaha inuna imiga arrinka garsoorka mudane Cabdiraxmaan bulshada mukhadaraadkiiba ku batay iyo daroogadii oo aad dadku isticmaalayaan ama xabag ha cabaan ama khamri ha cabaan ama ha cabaan maxay ahaydeen waxyaalaha kale gaasta iyo maxay ahayd badroolka iyo waxyaalaha iyo xabaga waxa soo dhan waxa weeyaan dadka gala waxa weeyaan dambiga laga dhaafi maayo oo lagu qaadi doonaa marka qof walba xaqiisa ha garto wixii lagu leeyahayna ha garto wixii cid ku leeyahayna sharciga ha tago wixii isagu lagu leeyahayna ha iska bixiyo si aan magaranaysaayeen way qofku markuu xuquuqdiisa garto iyo waajibaadkiisa jeelasheenan wax kale inuu bedel karnaa oo inuu maxay ahaydeen ka duwan dadka in lagu hayo marka waxaan inta ay hadhay insha Allah gobolka waan sii joogi doonaa waxaan ugu dambeyntii xeer ilaaliyaha guud ee qaranka Soomaaliland uu soo kormeeray qaybaha kala duwan ee xabsigaasi isagoo warbixino ka dhageystay qaar ka mid ah maxaabiista ku xidhan xabsigaasi waxaanu sidoo kale u booqday xarunta maxkamadaha ee gobolka Sanaag halkaas oo shir kula qaatay gudoomiyaasha maxkamadaha ee gobolka iyo garsoorka Ali Aadan Daahir TV-ga caalamiga Home Cable TV magaalada Ceergaabo.